kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal meel kastoo aad caalamka naga daawanaysaan halkani waa shabakada Harunag News waxa daawadayaal soo soo dhawaataan barnaamij gaar ah oo ka diyaarinay gaadiidkii ciidanka booliska uu ku wareejiyay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha gaadiidkaasi lagu wareejiyay ciidamada booliska Soomaaliland maxay ku soo kordhin doonaan xaaladda waxqabad ee ammaanka taas oo ay dadweynuhu had iyo jeer baahi weyn u qabaan iyagoo haatan ay xaaladdu tahay mid degan haddaba maalmihii u dambeeyay waxa magaalada Hargeysa lagu soo arkayay dhacdooyin aan hore looga baran kuwaas oo ay ka mid ahaayeen in dad habeenkii lagu dilo xaafadaha kala duwan ee magaalada Hargeysa booliska gaadiidka lagu wareejiyay ma noqon doonaan kuwa iyagu wax ka qabta ama ka hortaga rabshadahaasi isla markaana gacanta ku soo dhiga dadka fuliya had iyo jeer dambiyada noocaas oo kala tankiisana waxa weeyaan ciidamaheegana inta badan waxay dhex joogan ama wareegi doonaan xaafadaha iyo meelaha bulshadu ku nool yihiin waxa kale oo runtii bulshada halkan uga jeedinayaa mar haddii aynu fududaynay amnigii ciidamadii amniga booliiska iyo shacabkii inay isu adeegaan oo ciidanku u adeego shacabkuna inay halkii hore ka soo dhawaadaan oo ay booliisku walaalahooda iyo inamadooda inay yihiin ay ogaadaan oo muxuu haayay ay noqdaan indhahooda hore waayo adduunyada horu martay dadku waa wada booliis marka waxa loo baahan yahay qof kasta oo wax arka ama u baqa hantida shacabka ama nafta ummadaba inuu si degdeg ah ula soo xiriiro oo ay la shaqeysaan ciidamadiina idin heeganka ee habeen iyo maalin bay idin soo jeeda oo aydan dhibsan muxuu haayay ciidamo badan oo had iyo jeer booliiska laga cabanayay way jiraan taana waxbaanu ka qaban doonaa hawlahooda kuwan waxaan u tababaray imika inay naftiina badbaadiyaan inaad si qurux badan oo raaxo leh u seexataan in si nabadgelyo ah gurihiina u joogtaan inaa wax cabsi oo idin qabta haddii la yiraahdo aanay jirin idinkuna la shaqeysaan sidaasay shaqadu ku hawlgalaysaa aad iyo aadna u salaamantiin kuwa kalena waanu soo wadnaa arrintan Hargeysa kaliya maaha waxaanu ku fidanaynaa haddii gobolada oo dhan si dhammaanba dadka reer Soomaaliland ay ugu muxuu ahaayay ay u helaan ama ay ugu raaxaystaan nabadgelyadooda ayaan u samayn doonaa waana keenaynaa kuwa kale sida iyo nabadgelyo salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh saraakiisha wasaaradda saraakiisha ciidamada bahda saxaafadda dadweynaha sharafta badan halka taagan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka salaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waxaan idin sheegayaa halkan isagoo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu muddo yar oo gaaban joogay wasaaradda waxqabadkii ugu horeeyay uu ku soo kordhiyay ciidanka booliiska waarkasan baabuurta oo tootooyinka ah oo wax weyn ka tari doona xagga nabadgelyada dhammaan xaafadaha magaalada caasimadda iyadoo inta ku ekaan doona sida wasiirku sheegay waxaan halkan idin sheegayaa in ciidanka booliisku maadaama lagu soo kordhiyay gaadiidkii loogu talagalay oo tootooyinka oo halkii saldhigga laga tagayay ay si yar fudud dadweynuhu ula soo xiriiri doonaan ciidanka gurmadku waa laba kan waa gurmadkii degdeg ah ee fududaa xaafadaha dhexdooda marayay midna waa gurmadka kale ee culus marka waxay ka caawin doonaan nabadgelyada wax weyn ka tari doonaan tuugtii dhalinyarada xaafadaha wareerisay iyo wax kasta oo nabadgelyada wax ku dhimaya waxaan aad iyo aad halkan uga mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha Cali Maxamed Waracade oo isagoo muddo gaaban joogay ku soo kordhiyay ciidanka booliiska muuqaal iyo waxtar arkasaan gaadiidkaas oo nabadgelyada wax weyn ka tari doona assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxa barnaamijkan aad kala socoteen shabakada Harunag News xafiiskeena magaalada Hargeysa waa barnaamij qaasib oo la siyaasiyo nabadgelyo